السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركل أي موقع عصب موقع كان نوحة كسب سنة هاي أنا واحد لنا مركا qaabka Facebook looga dhigto dark mode ama madow maadaama inta badan oo cadaan yahay oo markaas cadaankaasina indhaha una u roonayn oo u baahan waqtiyada qaar kood inaad madow ka dhigato. Okay, muuqaalkan waxaan kugu sharaxayaa qaabka aad Facebook-gaaga madow uga dhigan lahayd. Bal ilaahay horta qaabka uu ekaanayo Facebook marka madow laga dhigo. Kaygani waa madow. Hada waa dark mode weeyaan waad arkaya waxa weeyaan waa madow si qurux badan buu markaas wax walba ku soo saaraya indhahuna markaas way ku badbaadayaan. Okay, hadaba sidee madowgan loogu furtaa? Mobil kasta waa uu leeyahay oo mobiladan dambe markaasi kamida ugu horeyn mobilkaaga waxa aad tagaysaa qaybta settingka ayaa tagaysaa qaybta settingka marka aad soo furto waxaad imanaysaa qaybta ay ku qoran tahay about phone marka aad soo furto waxaad markaasi iman doontaa software information halka ku qoran tahay software information marka timaado waxaad dooran doontaa bold number halka ku qoran tahay 7 jeer bad ku celinaysaa ayaad saa ugu dhufanaysaa 7 jeer then waad ka laaban doontaa halkan ugu hooseysa settingkaaga developer options ay kaga soo bixi doontaa developer options baad markaasi ku dhufan doontaa marka aad ku dhufato xagan hoose u socon doontaa oo soo wadi doontaa waxa aad imanaysaa meel ay ku qoran tahay force dark mode ay ku qoran tahay ana ku tusaya hadda hoos soo soco then halka ku qoran tahay force dark mode ay ku qoran tahay ayaad furaysaa haddana waa open way furan tahay marka halkaas aad furaysaa halka markaad furto application walba oo cadaan ah ama awal hore aad light mode ku isticmaali jirtay hadda madow ayuu noqonayaa settingka marka aad halka ka soo furto Facebook-gaaga soo galaysaa madow buu noqonayaa haddii uu madow ku noqon waayo kaliya mobilkaaga dark mode ka dhig hadda dark mode ayaa furan haddii aan dark mode ka qaado waxa uu noqonayaa cadaan Facebook-gayga hadda dark mode waan ka qaaday then waxaan ku noqonayaa Facebook-gayga cadaan buu hadda isku bedelayaa okay cadaan ayuu isku bedelay then haddana haddii aad madow ka dhiganayso qaybtan dark mode ayaad ma doontaa halkan aad furaysaa dark mode ayaad furan doontaa kadib inta wixii ka dambeeya madow ayuu isku bedelayaa Facebook-gaagu sidoo kale application kasta oo cadaan ahaa ama awal hore aad cadaan ku isticmaali jirtay madow ayuu ku noqon doonaa haddii aad wax ka akhrisan jirtay website-yo ama waxyaabahaas oo kale aad wax ka akhrisan jirtay madow ayuu ku noqon doonaa force dark mode marka aad soo furato sidoo kale Facebook-gana madow ayuu ku noqonayaa adiga arkaya qaabka markaasi uu ekaanayo halkaas markaasi ka furan doontaa Facebook dark mode waana adeeg aad iyo aad markaasi u fiican waadna ka faa'iideysan doonto tan iyo muuqaalka dambe inta ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.